السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا وناسن ميل كستو أدونك أتكجوكتان halkana waa Kalsan TV oo idinkaga imanaya xaruntiisa Minneapolis iyo waliba St. Paul haddaba maanta waxaanu nihaynaa kaftankii siyaasadda iyo waliba Cali Xaraare bal maanta aan weydiino Cali Xaraare meelaha uu nageyn doono iyo meelaha ay kaftanka siyaasaddu ay ku jirto yo Soomaaliya shalata sanado waa wala wareysana oo Soomaaliya siyaasadda ay ka luntay okay siyaasiyiintii Soomaaliya ayaa guud ahaan salbabaq baa ku dhacay waa wareeray xaq iyo xaqaba dabeetana waxaan miisaan saaray oo tartan u qabtay salaadiinta ugaasiyada isimada Soomaalida oo dhan waxaan tiri isimada ama garaadada ama salaadiinta wareeray xagee ugu badan yihiin Soomaaliya sanad ugu badan way caliyo halkaas waxa sababtoo rifriga ninka la yiraahdo sidwalaha marka kubadda cagta oo daawata imise meel buu carraa markuu ordayo galabtii marna goolkaasu gaaraya marna goolkaasu carraa labada kooxood iyagu is eryanayaan oo labada gool buu kala ordayaan inay kala dhalay laakiin isagu labadaba eryanayaan labadaba buu marka buu orda garaadadii Soomaaliya sanad sidwalahaas ma noqdeen waxa qola waxay la socdaan Soomaaliland qola waxay la socdaan Puntland haddana isma nabadgeliyaan idaacadaha soo fadhiisanaya markaas kan laga been sheegaya masaaka kala ku dhufanaya kala la cambaaraynaya marka waa salaadiinta ama garaadada ugu shir jira ay qabad badan waxay dhawaan ku shireen meel ay dhahay higlada iyagoo laba mabda kala aaminsan ujeedada weyn ee garaadada Sool iyo Sanaag waxay ahaayeen in dhaqanka iyo siyaasadda ay iyagu hantaan oo gacanta ku qabtaan labadaba la wareegan oo ay beesha ugu taliyaan hadii ay Soomaaliland raacayso iyo hadii ay Puntland raacayso iyo hadii ay gooni u tashanayaan waxay aad uga soo horjeedeen oo la dagaalamayeen maamulka Khaatumo waxay ka been sheegeen inta higlada joogeen ilaa iyo ugu yaraantii labo garaad oo garaad Salebaan iyo garaad Jaamac labadaba been bay ka sheegeen dabeeto higlada feer baa ka dhacay يسبرينا جراديني هي ولا جراديني ده أول تصبح عمود سنتر ما هي وحكون شري مكان فيدي هنا وصبح حد يقانا والمدين يقانا وعواندينا هلكا وحكون عيد دجال حول أو قعنت السلوتي السببها هو وين جراديني كسول يسناك هاي السياسة أول أنت حلت صار صقالني مش دمي لا يراد دمي لبلا بيرود أي أسكت دلي ولا لا هذا صار إن بدل ما كلمته كنت نيا كلمته إلهون حرست هي إلهون حرست أنت ماشى كلمته إن لو عنده عيدا كبر آمين لبضع وكوجل درستان إنه هشيسيان وكوجل درستان هي واحد كلا كوجل درستان إن لبضع بيرود ماشى كود قالنته إنه حتى أقولان إلى هذا أنت سافرستان إلى هذا وحانو بيرها أسوتشيننا إن أي نبدي السعوديين يحصلون ذي ويهشيان إنتي كل متنا وتأثيرنا إهدنا أي أبد مدايم دعمي إن بدنه سجى تأثير وهري كشيء العد إهدنا وادري هاوش الجرادة إهدنا وقت سجى الجرادي سجى مركا هاوشاس مركا الجرادة داسي حوك سارين أو أي إذا عدها كشيء دجال لك دعي عيل فوين oo ina dhowr qof lix qof ku dhinteen ay ilaacadii soo fadhiisteen garaadadii Soomaaliya Sanaag iyagoo leh wan nabadii lagu soo celiyay alif weyn hadii garaadadu faray ka baxaysa dadkii loo taasiyeen kuwii dhumayna way ka aamuseen shibka yiraahdeen marka interest halka ku jira alif weyn si kale laba taasiyay waa interest Allah uu naxariisada lafteeda ayaan sometimes interest ku jira ciyaarahay garaadadu waxay ay iyana taxsi u direen may waxa iyana ka digeen dagaal geel lagu kala qaaday oo ka dhacay mudug waana waxa ka xuseen geel oo waxa ka xuseen halka geel lagu kala qaatay hobi agteeda ay leeyihiin qolada geel qaaday si celiya ambaareen baa ku jiray garaadada Soomaaliya Sanaag waxa markii hore la shaqeeyay aad u soo dhaweyn jiray wadaadada iyo ganacsatada labaduba xarkii oo jiraan marka arkay jaawrisiin waxaan imika ka cabsi qabaa in garaadada Soomaaliya Sanaag ay ka qayb galaan oo ay ku biiraan koonfur galbeed baydhabo sida u socdaan imika Puntland iyo Soomaaliya waa dhameeyeen gobolkan kale ee mudug waa dhameeyeen galmudug waa dhameeyeen marka waxa hadhow koonfurta
koonfurta soo xadhay badhabo halka waxa ka taagan khilaaf aad u ballaaran iyo tafaraar qof farxad iyo waxaan u rajaynaynaa dadna kaftanka siyaasadda inay midoobaan dhinacay doonaan ba raacaan in ay meel bal horta isugu tagaan oo xasilaan taasoo u dirayna hawada u marayna ayaan hawada u mari doonaa